ninka la yiraahdo Yariso dilkiisa waxaad sheegtay inay dawladdu lug ku leedahay waxa kaloo ka warwarsan tahay ammaanka ra'iisul wasaaraha Roble oo aad leedahay dhabbihii Yariso mari doona arrinta maxay tahay saadaasha hadda nin xafiiskiisa inta lagu soo duulay artuur la dhigtay baabuurkii ku soo gali lahaa loo diiday lugtiisa ku galay adi xafiiska hadii la qabsaday adi in lagu waxyeeleeyo intay u jirtaa maxay wadaagaan Yariso iyo Roble waxay wadaagaan aadaabta Yariso lagu xushaa Roble lagu xushaa iyo wadanka inuusan hore siyaasadiisa u dhex jirin oo banaanka joogo oo hay'adahaas iyo waxaas ka shaqeynayo hadii la yiraahdo Roble radio Muqdisho meeqa agaasimo waaxida ka kooban wuxuu ku dhahayaa sug al-cadaala weydiina haddaad tiraahdo xafiiska wasiirka qorsheynta Jamaal ka waran meeqa agaasimo waaxidu leeyahay wasiir ku xigeenka weydiina oo leeyahay Jamaal wuxuu xiriir la leeyahay farmaajo adiga marka Roble international community adiga maxaa isdhaantiin wixii lagu sheegay hadaa buug qoranayso aadan dawladdu warka Abdisatar amal maskaxdaada freeshka kala soo bixayn wax wadan ka jira marka dawladdu warka ma hayo Roble iyo farmaajo way kala adkaanayaan maxay kala adkaanayaan waxay ku kala adkaanayaan dhinaca oo qiyaanada waxay ku kala adkaanayaan dhinaca gaadmada waxay ku kala adkaanayaan dhinaca dhaqaalaha inta farmaajo ifahad joogeen 5 sano la soo dhaafay oo sanadkii shanaada u socdo Soomaal lacag ay keedsanayeen ganacsi ku jireen ha lacag meel ay u taalaa waay Roble lacag mees meel kasta oo lacag raadin waa laga soo xiray asagan si xoog la u raadin way muxuu lacag u raadinayaa mudarashada qabto kulli waxaan u maleynayaa mustaqbalka inuu rabo wuxuu siyaasadda ku soo galo waay shaqadu hadda hay kama fikiraayo Roble saasaan ku qiyaasa tan kale markaan fiirfiiriyeen xafiiskiis dad oo quality leh oo dhinaca amniga macluumaad ka heli kara ama iska ilaalin kara dhinacyada ishayaan kama tirsan muxuu ku dambeyn doonaa Roble kula tahay wuxuu ku dambeyn doonaa dawlad goboleedyada inay soo dhameeyaan doorashada xildhibaanada wax wadanka badbaadinayo waxa waaye Siciidan iyo Axmed Madow iyo xildhibaanada soo bixi doon oo isteedil ka soo baxay way muu baqdaa marka amaanka Roble marba hadduu qatarta noocaas aad leedahay mar walba qatara jirta ma suuragal ma tahay in ra'iisul wasaare la kharijiyo adoo raacaya dhaqanka ay leeyihiin kooxda dawladda hadda joogta fil Soomaaliya maxaa wax lagu kharijiyaa qoryo Soomaal qoryihii xafiisyadiisa lala galay asiga haduu ku jiri lahaa ka war adaa ku weydiina markii ciidanka xafiisyadiisa galayeen asiga haduu ku jiri lahaa ka war ciidan xafiis ra'iisul wasaare gala liir ma ra'iisul wasaare dhaafa marka ra'iisul wasaare waa la dili karaa wax kasta suurtagal ah laakiin waxaa la ii sheegay inuu aad u buraarugsan yahay oo attentionkiisa soo jeedo marka wax leedahay marba hadday suura gashay in dad dawlad kamida ay maleegaan in la dilo duqii magaalada saad sheegayso oo ay maleegaan in la dilo Ikraan oo aad og tahay oo ay maleegaan in la weeraro Cabdiraxmaan Cabdishakuur kuma adkaad leedahay inay weeraraan ama dilaan laba diyaaradooda Itoobiyaan inay goday ka soo baxday Axmed Madow inay soo dilaan u bixeen ku tartaasna marka wax leedahay waa suuragal in ra'iisul wasaare la dilo kuwii la soo dilay iyo kuwii dilka ka fakadaaba joogay waa ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkan waxaad ku jirtaa waa qaybta Facebook ay ha noolaato haddii aad rabto barnaamijkan oo dhammaystiran fadlan booqo YouTube-ka ha noolaato mahadsan